Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow mar kale iyo Garasho Tube. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad channelka soo booqato, subscribe saar. maanta waxaanu ka hadli doonaa barnaamij baryahan dambe aad xasaasi u noqday oo dadka qaar badhan iska taagaan, taasi oo inta badan inay wax kala fogeyso mooyaan waxba isu soo dhaweyn. waxaan ka hadlaynaa caqabadaha ay ka hor yimaada gabadha Soomaaliyeed ee hanka leh. kama hadlayno gender balance, kamana hadlayno feminism iyo fikrada qaloocan ee gabdhaheena lagu marahawaabiyo. boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay kuna qanacsanahay in halka diinta islaamku ee gabadha muslimka ah dhigtay ay tahay halkii ugu sarreysay uguna sharafta badnayd, balse ku dhaqankii iyo fulintii ay meesha ka maqan tahay. haddii ay noqoto gabadha oo meelo kale looga durbaantumay, iyo haddii ay noqoto ragga Soomaaliyeed oo aan diinta islaamka iyo xaqa ay gabadha siisay waxba ka aqoon, islamarkaana kusii dhegan dhaqan Soomaaliyeed oo qalafsan. sidaan taytalka hore ku sheegay, waxaan ka hadlaynaa gabadha Soomaaliyeed ee hanka sare leh aakhire iyo adduunba. kama hadlayno gabadha iska caadiga ah ee waxna aan baran, waxna ka fikirin. kamana hadlayno gabadha waxoogaaga maadiga ah iyo dhowrka digri u been sheegtay ee tii Ilaahay meesha ka saartay. waxaan guud ahaan kusoo koobayaa caqabadaha gabadha Soomaaliyeed ee hanka leh ka hor yimaada 4 caqabadood. caqabada koowaad waxa weeyaan bilowga nolosha qoyska iyo siyaabaha ay gabadha u soo kortay. qodobka labaad waxa weeyaan iskuulka iyo deegaanka waxbarasho ee gabadhu soo martay iyo sidii loogala soo dhaqmay. qodobka saddexaad waxa weeyaan jaamacadda iyo shaqo raadinta waxyaabihii ay kala soo kulantay. qodobka afraad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan kamara dhalinta hamiga ay muddada dheer u soo halgamaysay, haddii ay noqoto fikir iyo curin markii ay la timaado oo aanay wax taageero ah ku helin. haddaba haddii aan soo guda galno qodobka koowaad yaraanta gabadha iyo soo korinta qoyska, sidaan ka warqabno ummadda Soomaaliyeed dhaqan bay leedahay. gabadha ilaa marka ay raad dhaqaajiso oo ay inan tahay lagu barbaariyo shaqo gabadhnimo. mana xumo taasi in gabadha gabadhnimo loo diyaariyo, balse marka wiilka loo eego in gabadhii shaqadeedu noqoto wax karin, nadiifin, iyo inay wiilka u shaqayso oo ay ka liidato oo ay isaga fadhiga wax ugu keento. xitaa gabadha nasiib kale waxbarasho loo diro, iyada iyo wiilka waxbarasho loo wada diro, waxa dhacda inaan inta badan laga rajaynin oo loogu hanweyneyn inay gaadho halka wiilka lala doonayo. markii waxbarasho loo diro ay ka soo wada noqdaan, iyada waxa koowaad sugaya waa shaqo iyo guri iyo inay wiilkii ay wada socdeen iskuulka ka wada yimaadeen fadhiga wax ugu keento. qoyska saboolka ah oo kale waxa dhacda markii aanay labada caruur ah waxbarasho wada diri karaynin inay wiilka oo kaliya muhiimadda siiyaan oo gabadhii sidaa meesha kaga saaraan. xitaa faamiliga ladan, qoyska ladan oo kale isku si uguma horaan lacagta iyo dhiirigelinta labada qof ay dhaleen. inta badan wiilkuun bay meel sare la doonaan, gabadha waxbarasho way u dirayaan, wax way ka bixinayaan, laakiin marlayba wiilka meesha ay la rabaan gabadhii lama rabaan. gabadh baa tahay, hawshan qababa meesha taala. dhawaan waxaan ka hadlay barnaamijkan kaga hadlayay caqabadaha iga soo maray waxbarashada iyo muddadii aan kusoo jiray. waxaa jirtay gabadh aan muddo asxaab ahayn, balse aanan sidaa hoose isugu sii daadegin waxyaabaha qaar aanan iska ogeyn, oo markii barnaamijkayga daawatay ila soo xidhiidho iga warantay caqabado iyada ay haysta. gabadhaas waa gabadh reer ladan ka dhalatay, weliba reer dhaqan oo saldanad caqilnimo mise ugaasnimo. ma doonaya inaan si toosa u sheego waxay yihiin, laakiin waxa weeyaan reer aad looga ciseeyo Soomaalida dhexdeeda oo reeraha dhaqanka iyo sharafta ummadda ku dhexleh. waxay iga sheegaysay gabadhaasi inay marxaladda guriga iyada iyo wiilka lagu kala takooriyay ay soo martay. waxay iga sheegaysay kale in xitaa markii faamiliga waxbarashada u diraan ay faamiliga cida qaraabada la ah oo kale ay kala kulmi jirtay hadallo ah gabadh nin oday sharaf la dhalay baa tahay
waa laga fiican yahay inaad bannaan usoo baxdo, inaad waxbarasho usoo baxdo, reerka ha ceebeynin, waxyaabo noocaas ah. Markii ay kasoo gudubto caqabadihii qoyska ee ay deegaankii waxbarashada timaado, waxaa halkaan ugu sugaya caqabado kuwii hore ka adag. Halkan waxaa jooga nin macallin ah iyo nin ay isku kalaas yihiin gabadha. Labadu waxay kasoo kaceen guri dhaqankaasi yaallo ee gabadha hoos loogu dhigayo. Macallinkii isku si ulama wada dhaqmayo labadii caruuraha, wiilkii iyo gabadhii. Wiilku haddii uu yahay kan ugu saaqadsan kalaaska, waxaa laga yaabaa inuu macallinka uga muhiimsan yahay dhammaan dumarka kalaaska jooga, waxay doonaanba ha ahaadaan. Waxaan garanayaa macallimiin kalaaska dhexdiisa nagu odhan jirtay, maxaad iska xiijinaysaan, kulleyba qoosh garaacis iyo cunto karin baad ku dambaynaysaan, maad meelaha caanaha iskaga iibisaan intaad waxbarashada waqtiga iskaga luminaysaan. Haddii aad tahay qofka kalaaska ugu fiican ama uguba sarreeya maadooyinka qaar oo kale, waxaa lagu odhanayaa maxaad garanaysaa, wiilasha wax ka qashtaan ama wax weydiisaane. wayna nagu dhacday taasi aniga iyo gabadhaan asxaab nahay hadda ka hor. Macallin aanu maadadiisa ugu sarreeyna labadayadu kalaaska ayaa macallinkii noo yimid dabadeedna wuxuu nagu yiri hablo waxa ma yaqaanaane labada inaan hareeraha ka xiga ay kana wax weydiiyaan marka imtixaanka lagu jiro, dabeedna labada qashay isu keeneen bay wiilashii kaga sarreeyaan, waxa taqaaniin malaha. Markay noqoto in macallinku casharo dheeraada meelaha ku bixiyo sida form 4 oo kale oo ardayda maraajac loo sameeyo, waxa dhacday in macallimiinta qaar ay wiilasha hoos ula faqaan oo yiraahdaan halkaasan cashar ku bixinaya waqtigaas kaalaya. Isla taasi way nagu dhacday aniga iyo gabadhaas oo markii aanu ogaanay in macallinkaas xiisad bixinayo aanu meeshii tagnay, waayo waqtiga form 4 aad bay muhiim ugu tahay ardayda inay maraajac helaan. waanu tagnay, markii aanu meeshii tagnay waxa dhacday in ardaydii iyo macallinkiiba nala yaabeen oo ay nagu yiraahdeen wiilasha qaar nagu yiraahdeen meesha hablo lagama baahnay, maxaad doonaysaan. sidaas laag wiilashu haddii gabadhi fikir keento kalaaska hablaha kamid ah, gabadhi fikir keento sidoo doonaha u wanaagsanaadee waxay odhanayaan maxay naga noo sheegaysaa, waayo iyaga ayaa walaashood sidaa guriga ugula dhaqma. mostly halkaas waa halka hablaha badankoodu ku hadhaan kuna niyad jabaan marka guriga iyo iskuulkaba hoos loogu dhigo, sababtoo ah caqli fiican oo ay isku sii dhiirigeliyaan oo ay caqabadaha kaga gudbaan malaha waqtiga. qodobka saddexaad haddii aanu imaado, gabadha intaasoo caqabadood tii familiga iyo tii iskuulkaba kasoo gudubtay. qodobka saddexaad waxa weeyaan kii jaamacadda iyo kii shaqada. badanka jaamacadda waxa laga yaabaa inaanay caqabado badan kaga imanin marka laga reebo dhaqaalaha oo weli familiga ku xidhan. halkan waxaa jirta shaqo raadinta oo kale gabdhaha hablaha inay caqabado kaga yimaadaan, mararka qaar ay dhacdo in jirkooda iyo gabadhnimadooda lagu xujeeyo si ay shaqo u helaan, taasina hablo badan ay ku dhacday. qodobka afraad aan kusoo gabagabeynayaa waxa weeyaan gabadha markii ay fikir iyo curin la timaado ay doonayso hamigii ay intaa usoo samreysay waxaasoo caqabado uga soo dabaalatay inay cid ku taageerta fikirkeedii iyo curinteedii hesho ayaa weli caqabadii taagan tahay. oo waxaa la leeyahay gabadh baa tahay ka bax hawlahan kuma khuseeyaane oo iska guurso, bal maxaa gurigay kaaga xidhan. ugu dambeyn ma diidanin inaan gabadhahay, mana diidanin inaan ragga ka duwanahay. waxay igaga fiican yihiin baa jira, sidoo kale waxaan kaga fiicanahay baa jira. xuquuqna waxaa igu filan inta diinta islaamka i siisay, waa haddii ragga Soomaaliyeed laga helayo.